maxaa ku kalifay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro inuu safar rasmi ah ku tago Israa'iil xilli gobolka Geeska Afrika uu galay marxalad siyaasadeed oo xasaasi ah? Ma aqoonsi ayay Soomaaliland raadinaysaa mise Israa'iil ayaa dan weyn ka leh xeebaha badda cas halkee ayay ku jirtaa khatarta Xuutiyiinta Yemen? Maanta waxaan daaha ka qaadaynaa xogta danaha qarsoon iyo saameynta safarkan. Israa'iil shawitay horta Ciro midaan ku sheegay iyo salaad ku tijiyay Bithmaqdis ogari war salaad ilaa Netanyahu baag taagan oo Ilaahay salaad kama dhigaye anu midaan ku ogahay haddaad adduunyada doonto inaad sidii Netanyahu u noolaato aakhirana aad doonto inaad sidii Cumar bin Khadaab u noolaato suuragal maaha labada diimood mid aynu raacno Netanyahuna aynu raacno gaalnimada daaqada maalmihii la soo dhaafay warbaahinta gobolka iyo caalamka waxaa qabsaday booqashada madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro oo ku tagay Israa'iil. sawirada iyo qoraalada la baahiyay waxay muujinayaan kulamo heer sare ah oo dhex maray madaxda Israa'iil iyo wafdiga Soomaaliland, laakiin su'aasha ugu weyn ayaa ah maxay labada dhinac doonayaan. qaybta koowaad ujeedka Soomaaliland muddo ka badan 30 sano waxay raadinaysaa aqoonsi caalami ah ilaa maanta ma jiro dal si rasmi ah u aqoonsaday Soomaaliland inay tahay dawlad madax bannaan haba u weynaaday Mareykanka. sidaas darteed maamulka Soomaaliland wuxuu xiriiro la sameynayaa dalal kala duwan si uu u helo taageero siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed. safarka Israa'iil wuxuu noqon karaa isku day cusub oo lagu raadinayo taageero diblomaasiyadeed, maalgashi, tiknoolajiyad, xiriir amni iyo saameyn siyaasadeed oo caalami ah. qaybta labaad danaha Israa'iil muddo dheer waxay xiiseynaysay marinka badda cas. sababta badda cas waa marin ay maraan kumanaan maraakiib ganacsi sanad kasta. qofkii saameyn ku yeeshaa marin biyoodkan wuxuu saameyn ku yeelan karaa ganacsiga dunida. xeebaha Soomaaliland waxay ku yaalaan meel istiraatiiji ah oo aad ugu dhow marinnada muhiimka ah ee badda cad. danaha Israa'iil waxay ka mid noqon karaan xog amni, la socodka dhaqdhaqaaqyada gobolka, ballaarinta saaxiibada gobolka, ilaalinta maraakiibta, laakiin arrinta ugu weyn waa Xuutiyiinta Yemen. qaybta saddexaad khatarta Xuutiyiinta iyo badda cas. tan iyo markii uu dagaalka qasric qaraxay, kooxda Xuutiyiinta Yemen waxay weeraro ku qaadeen maraakiib badan oo maraya badda cas. weeraradan waxay sababeen kororka qiimaha gaadiidka, dib u dhac ganacsi, cabsi amni, maraakiib badan oo maraya waddooyin kale. dalal badan oo reer galbeed ah iyo Israa'iil waxay si dhow ula socdaan xaaladda badda cas. haddii xasilooni darradu sii kordho, xeebaha Geeska Afrika waxay yeelan karaan muhiimad sii kordhaysa. taasi waa sababta falanqeeyaal badan ay u rumaysan yihiin in safarkan uu la xiriira arrimaha amniga badda cas. and that's waxa constitutionality-ga waxa la yiraahdo dastuurnimada waxa ay leedahay waa intaas. dastuurku shaatiyo tola meel yaallo, shaatigaas qofku uu eegaya gashana nimaan la ekeynaa raba shaatiga inuu gashado marka see la yeelaa war waa kaa weyn shaatigan ma gashan kartid, war ma shaatigan ciriiriyo ku yaa ma gashan kartid, ka joogna ka yeelima. dhibka jira kaas waaye nin shaatigiisa hore u tasho lama arag, anigana shaatigayga ma tolo karin. dowladda federaalka Soomaaliya marar badan waxay sheegtay in arrimaha dibadda ay tahay awood u gaar ah dowladda dhexe. dhanka kale, Soomaaliland waxay ku doodaysaa inay xaq u leedahay inay la macaamisho cid kasta oo dan u ah shacabka Soomaaliland. arrintan ayaa sii kordhin karta doodaha siyaasadeed ee u dhaxeeya Muqdisho iyo Hargeysa. falanqaynta ugu dambeysa, safarka Ciro ee Israa'iil ma aha oo keliya booqasho caadi ah, waa dhacdo xambaarsan siyaasad, amni, ganacsi, danaha badda cas, mustaqbalka Soomaaliland, tartanka quwadaha gobolka. su-aasha weli taagan waxay tahay daawade, ma noqon doontaa tallaabo Soomaaliland u dhaweysa aqoonsi mise waxay noqon doontaa iskaashi amni oo la xiriira khatarta badda cas iyo Xuutiyiinta? dagaalay gashay, adduunyay gashay, khataray darantay. khatarteeda inay ka jawaabto
ayay isku dayday waxay u aragtay dhulka soomaaliya qayb ka mid ah inuu khataraheeda uu yaraynayo waa fiirisay annaga dowladda soomaaliya waana soo approach garaysay israa'iil dhowr maro hore cadaawad idinma qabna laakiin wax gaaroon hadda cilaaqaad aan idinla leenahay ma jiro waqtiga cilaaqaad had idinla yeelanaya lama gaarin hala gaaro waqtigeeda haddaba adiga maxay kula tahay safarkan ma u aragtaa fursad Somaliland mise wuxuu keeni karaa muran siyaasadeed oo cusub fikirkaaga ku qor qaybta faalooyinka ha iloobin like subscribe iyo share si aad ula socoto falanqaynta siyaasadda geeska Afrika iyo dunida madaxweynihii jamhuuriyadda wuxuu tegey magaalada Tel Aviv Israa'iil qaarun baan ku yidhi maxaa nacdasha idin geeyey subeer wala garxajis baan ku yidhi nacla abiin ku yaala maxaa idin geeyey ilaahay marka horeba sugulashu noogu taagnaaba inuu nacdaabaa doonaysa idinkaaban idinba idinkii qodsida dhukan jiray un bay yidhahdeen nafti naga caalamkii oo dhan baa hadda hadal hayo meel aan laga hadalhayn ma jirto ka sheekee Israa'iil shaawi tagay horta ciraalu mid baan kuu sheegay iyo salaadu ku tujiyey bidmaqdis ogari war salaada ilaa Netanyahu baag taaganoo ilaahay salaad kama dhigaye anu mid baan ku ogahay haddaad adduunyada doonto inaad sidii Netanyahu u noolaato aakhirana aad doonto inaad sidii Umar bin Khadaab u noolaato suuragal maaha labada diimood mid aynu raacno Netanyahuna aynu raacno gaalnimada daaqada halaynaga saaro toos aynu qaadano anigu waabay warka waa cad yahay waadida iyo hada waa iska salaamantay masjidda saxaabiyo kaliya taatay muxtaar saddex asxaabiya imika ciidankii Soomaaliya asxaabtii way noqdeen asxaabtan Tel Aviv ka tagaysa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun war waxa doonaan marana soo ictiraaf kuma jiro hadoonta ictiraafkiina laakiin imika ilaahay ictiraaf toos ma bixiyo gaalnima garab taalada cigaal yiri bahad sheedaaga baad digooska wano kayna waaleebo wayna cigaalka imika sheeyaldiinta albaabada ku garaacayna والله علينا عياله دحل حباد نوغا تagtay adeer ilaahay meesha lagu naxariistay meel yahuud wuxuu yiraahdaa uu taga meel walba kay lagu tagayna soo jawabtaad soo dhaweey hada marka aqoonsi anu ma dhaweynaa anu xamar baan ka tagayaa anu turkiga iska dhiibaya xamar iyo turki iyo meelaha kale muslimkan shahaadadan ka dhawaanay inaad aakhirul cibla waan ku jiray ilaahay fiinaa lama bixi karaye bad hay gelinina bad